dagaalka bariga Yurub ee guud ahaan ku sii fidaya qaaradan ayaynu doorkan isdul taagaynaa. Aynu ka bilowno warkan xalay ka soo baxay Donald Trump oo ahaa taageeraha ugu weyn ee Ukraine ku wehelinayay dadaalada istifaaca ee isaga celinayso duulaanka Ruushka. Qoraal uu Trump ku daabacay barihiisa internetka ayuu ku sheegay war loo fasirtay in Mareykanku isu dayn doono Ukraine iyo Ruushka, taa oo ka dhigan inay kala reebto uun ku kala hari doonaan. Trump waxa uu qoraalkiisa ku sheegay inuu kadib markii uu arkay xaaladda dhaqaale iyo ciidan ee Ruushka iyo Ukraine ay tahay in Ukraine oo kaalmaysanaysa midowga Yurub ay dagaal xaqeeda ku dhacsato iska celiso Ruushka oo ay dib ugu guuleysato guud ahaan xuduudaheedii ka hor duulaanka Ruushka. Wuxuu qormadiisaas ku sheegay in Ruushku dagaal qorshe la'aan ku jiray 3 sano iyo bar, ka oo asbuuc ku dhammaan karay mid oo Ruushka u ekaysiinaysa shabeel dhufaan ah. Wuxuu yiri marka shacbiga Ruushku ogaadaan waxa dhab ahaantii ku lingaxan dagaalkan iyo waxa lagu bixiyay dhaqaalahoodii, waxa fududaan doonta in Ukraine dib ula soo noqoto gacan ku haynta guud ahaan dalkeeda iyo ka badanba. Waxa uu Ukraine ku dhiirigeliyay inay dhaqaale xumada Ruushku wajahayo si degdeg uga faa'iideysato oo halka guul istifaac ka tirsato. Isla hadalkiisaas waxa uu si sarbeeban qaaradda Yurub ugu yeeray inay ka qayb galaan difaaca iyo dib u soo celinta xuduudaha Ruushku qabsaday ee Ukraine, taasoo ka dhigan inuu Yurub ugu yeeray inay iska caabiso weerarada tooska ah iyo daandaansiga uga imanaya Ruushka. Docda kale falanqeeyayaashu waxay hadalkan ku qeexeen in Trump doonayo in Yurub kaalintii kaalmaynta hub iyo dhaqaale ee Mareykanka u gasho Ukraine, taasoo ay u muuqato inuu ka soo daalay maadaama uu Mareykanku Ukraine dhabarka ku waday 3 sano iyo barka ay Ruushka difaaca kaga jirto oo la warinayo in lacag balaayiin gaaraysa ay ku kharash gareeyeen istifaacan aan ilaa hadda guul dagaal iyo mid diblomaasiyadeed midkoodna laga guntin. Dhinaca kale, inta badan wadamada qaaradda Yurub ayaa la dhibtoonaya daandaansi joogto ah oo Ruushku ka wado xuduudahooda hawada, waxaana dalalkani sida la wariyay isu diyaarinayaan dagaal ay Ruushka kala hortagaan haddii daandaansiga diyaaradaha daroonka ahi horgalka u yihiin sii socdo, midda oo sababi karta dagaal weyne ka dhex qarxa Ruushka iyo Yurubta bari. Si la mid ah sida Mareykanku ugu sheegay Ukraine inay inta isku filaato dagaal guul ugu doonato, ayuu naatada Yurubna horey ugu sheegay inay ciidan ahaan isku filaadaan oo ka tanaasulaan kaalmada military ee Mareykanka, midaas oo sababtay cabsi ay wajahayaan wadamada qaaradan ee ciidan ahaanta hurday ilaa kadib dagaalkii labaad ee adduunka. Dhaqdhaqaaqyo dib u qaabayn ciidan iyo mid hubeed ah ayaana waagan ka socda qaaradda Yurub badankeed, kuwa oo u eg inay iyagoo aan weli gaashaaman ay Ruushka guluf degdeg kala kulmi karaan.